القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawo barnaamijka dhambaalka quraanka. barnaamijka la magac baxay dhambaalka quraanka waxaan kaga waramnaa aayado ka mid ah aayadaha quraanka kariimka. aayadan dul joogsanayno qaala tacaala qaliilan maa tashkuruun. alla waxa uu yidhi in aad u yar ayaad mahadnaqaysaan. alla ayaa inoo nimceeyey ilaa aynu u malaynay in aynu xaq u leenahay oo mahadnaqiisa hilmaamnay. waxaynu doonno ayaynu soo iibsanaa kadibna waxaynu hilmaamnaa cidda hantida ina siisay. waa aynu guurnaa oo haddana galab carownaa. waxaynu hilmaamnaa cidda ina siisay caafimaadka. xarumaha caafimaadka ayaynu marnaa kadibna waxaynu hilmaamnaa allah ina bogsiiyey. xabsiyada ayaynu ag marnaa haddana ma xasuusanno allah ina siiyey xorriyadda. xanuunka ugu halista badan ee ku dhaca insaanka waa la qabsiga nimcadda iyo in aynu u aragno deeq Allah. guriga aad gashaa waa nimcada fiiri derbijiifka. xaaskaagu waa nimcada fiiri iskaabullada. ilmahaaga kugu soo ordaya marka aad guriga gasho waa gallada fiiri medhalayska. alla ayaa ina siiyey nimcooyin badan balse waxaynu ka gaabinay mahadnaqiisa. ku celceli mar kasta allahayow mahadsanid waayo mahadnaqu waa dabarka nimcadda. gebagebo alla waxa uu yidhi in aad u yar ayaa mahadnaqaysaan. kubiirku waa mahadnaqa mar kasta ku celceli allahayow mahadsanid waayo mahadnaqu waa dabarka nimcadda.